Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Channelka dhageysanaysaan waa dunida cusub. Maantay waxaan ka hadlaynaa dagaalada ugu dambeeyay ee ka socda dalka Ukraine. Fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, like dhacsi, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kusoo dhawow dagaalka Ukraine. Mareykanka oo Ukraine u diraya hub ay ku duqeyn karto magaalooyinka Ruushka. Mareykanka ayaa Ukraine u diri doona gantaalo ka casrisan kuwii horey loo siiyay si ay isaga difaacaan weerarka Ruushka ku hayo, sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Joe Biden. Hubkan oo ay muddo dheer codsanayeen madaxda dalka Ukraine ayaa la filayaa inuu ka caawiyo sidii ay ugu beegsan lahaayeen cadowgooda oo meelo ka fog laga shiishi karo. Ilaa hadda Mareykanku wuxuu diidanaa inuu codsigaas fuliyo isaga oo ka cabsi qabay in hubkaasi lagu duqeyn doono meelo ka mid ah gudaha dalka Ruushka. Balse maanta oo Arbaca, Mr. Biden waxa uu sheegay in gargaarkan militari uu xoojin doono saameynta ay xukuumadda Kiev ku leedahay wadaxaajoodka kala dhexeeya Ruushka. Haddana ay u badan tahay in xal diblomaasiyadeed la gaaro. Biden ayaa maqaal uu qoray lagu daabacay wargeyska New York Times ku yiri, taasi waa sababta aan go'aansaday inaan Ukraine siino gantaalo aad casri u ah iyo rasaas u sahlaysa inay si toos ah oo cabir saxan leh ugu beegsadaan fariisimaha ciidamada dagaalka kula jira ee ku sugan gudaha Ukraine. Hubkan cusub waxaa ka mid noqon doona gantaalada shiishka toosan leh oo loo yaqaano M142, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad ee lagu arrimiyo Mareykanka. Inkastoo uusan kala caddayn tirada gantaalada loo diri doono Ukraine, gantaaladan ayaa loo adeegsan karaa duqeynta dhowr meel oo isku mar ah, waxayna gaari karaan fogaan dhan ilaa 70 kiilomitir iyo 45 mayl, waxayna ka tiri dheer yihiin gantaaladii ay hadda haysato Ukraine. Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay inay ka cabir fiican yihiin gantaalada ay haystaan militariga Ruushka. Bishii la soo dhaafay, taliyaha militariga Ukraine ayaa sheegay in gantaalada noocoodu yahay HIMARS ee hadda uu Mareykanku u dirayo ay noqonayaan kuwo muhiim ah, ayna u sahlayaan inay isaga difaacaan gantaalada ay Ruushka ku soo weeraraan dalka Ukraine. Mareykanka ayaa filaya in Ukraine ay hubkan geyso gobolka dhaca bariga xiga ee Donbass, halkaas oo dagaalku sida xooggan uga socdo ahna meesha lagu adeegsan karo in lagu bartilmaameedsado goobaha ay yaalaan gantaalada Ruushka ee lagu duqeynayo magaalooyinka Ukraine. Saraakiisha aqalka cad ayaa aqbalay in la bixiyo gantaaladaas, iyaga oo sheegay inay tallaabadaasi qaadeen oo kaliya kadib markii ay madaxweyne Volodymyr Zelensky ka heleen damaanad qaad ku aadan inaan gantaaladaasi loo adeegsan doonin in lagu duqeeyo magaalooyinka Ruushka. Uma dirayno Ukraine gantaalo ay ku weeraraan gudaha Ruushka, ayuu maqaalkiisa ku qoray Mr. Biden oo ah madaxweynaha dalka Mareykanka. Ciidamada Ruushka taabacsan oo gantaalo ku tuuraya magaalada Yeysk ee gobolka Donetsk. Gantaaladii ugu dambeeyay waxa ay xudun u noqonayaan hubka qiimihiisu ku kacayo 700 milyan ee lagu taageerayo Ukraine, waxaana si rasmi ah mashruucan loo daafurayaa maanta oo Arbaca ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Diyaaradaha xukuumadka u kaca hubka lidka taangiyada, gawaarida ciidamada iyo qalabka kale ayaa ku jira gargaarkan oo noqonaya kii 11aad ee uu Mareykanku siiyo Ukraine tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Febraayo ee la soo dhaafay. Madaxweyne Biden oo sheegay in ujeedadiisu ay tahay sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed ayaa Ruushka ku dhaliilay inay sii wadaan ficilada gardarrada ay ku carqaladeynayaan wadaxaajoodkii nabadeed. Waxaana intaas ku daray in Mareykanku uusan weligiis cadaadis ku saari doonin Ukraine sida ay dhulkeeda u dhibto iyada oo ku bedelanaysa in dagaalka laga joojiyo. Mar uu si toos ah uga hadlayay halista ku saabsan in hubka nukliyeerka loo adeegsado Ukraine, ayuu Mr. Biden yiri, waqti xaadirkan uma jeedo wax calaamada oo muujinaya
in Ruushku uu damacsan yahay tallaabo noocaas ah, balse waxa uu ka digay in taasi haddii ay dhacdo uu noqon doonto tallaabo aan la aqbali karin oo la imaan doonta cawaaqib xumo aad u daran. Wax yar kadib markii uu Mr. Biden ku dhawaaqay arrintan, saraakiisha militariga Ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadooda qaabilsan isticmaalka hubka nukliyeerka ay ku guda jiraan tillaabooyin ku aadan sidii ay uga howlgali lahaayeen, sida ay tibisay wakaaladda wararka ee Interfax. Goor sii horeysay, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruuska, Sergey Lavrov, ayaa reer galbeedka ku eedeeyay inay Ukraine ku qulqulinayaan hub. Waxa uuna sheegay xamuul kasta oo ah hub oo loo wado Ukraine oo uu bartilmaameed sharci ah u noqon doono Moscow. Wasaaradda ayaa sheegtay in dalalka ku jira isbahaysiga NATO ay ku ciyaarayaan dab marka ay hubka u dirayaan Ukraine.